marwaad cabdi qooley oo ka tirsan madaxda xisbiga wadani ee laanta dalka Sweden ayaa ka hadashay doorashadii ka dhacday dalka Somaliland iyadoo sidoo kale fariin u dirtay labada xisbi mucaarada. marwaad cabdi ayaa waxa kaloo ay ka hadashay xildhibaan Cabdikariin Axmed Mooge oo ay sheegtay inuu taariikh ka dhigay doorashooyinka Somaliland, shacabka reer Hargeysana ay doorteen maayarkoodii loona baahan yahay in la ixtiraamo codka shacabka. waxa aan doonaynaa inaan maanta waxaan idin soo duubnay clip aan ugu talagalnay inaan u hambalyeeyno inamada qiimaha badan leh ee aan rajayno dalka inay isbedel ku sameynayaan. haddana waxaan aad doonayaa intii aan ka tegay inaan u hambalyeeyo iyagana dhowr qodob oo kalena aan ka hadlay insha Allah billahi kariim haddii ay ka dhigo. dhammaantiin waan wada salaamayaa. marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. islaanka bacdi waxaan halkan taaniyadii bogaadin uga soo diraya iyo mabruuq aan leeyahay dhammaan inamadeenii qiimaha badnaa ee aynu dooranay ee mujtamaca reer Somaliland doorteen, hadday tahay golaha wakiilada iyo hadday tahay golaha deegaankaba. anigoo ka bilaabaya caasimadda Maroodijeex, gobolka Togdheer, gobolka Sool, Sanaag, Awdal, intaba aniga oo aan salaamayo oo aan u tahniyadeynayo dhammaantood. lixdeena gobolba waan u tahniyadeynayaa dhammaantood, intii ka soo baxday intii aan soo bixinna iyaguna iyagana dee ugu tahniyadeynayaa maadaama ay isla tijaabiyeen oo ay rabeen inay siiyaan waqti geliyaan juhdi iyo dalkoodii dadkooda. laakiin maasha Allah dee may soo bixin, laakiin waqti kale insha Allah ay jaanis ku heli doonaan. shaqadii dalka iyo dadkuna waa u furan tahay oo mar walba dee waa u furan tahay baan anigu aaminsanahay. inta haddaan ka soo laabto waxaan halkan doonayaa inaan ka hadlo. waxaan maqlay mar dhaweyd oo aan furay miidiyaha aan yara eegay, waxaan ka arkay inamo adigu kule laba inanba ishu igaga dhufatay igaga dhacday. wadaa inanoo lahaa waxaanu isu diyaarinay ama aanu isu soo taagnay inaan u sharaxanahnay Maroodijeex, maayarka Maroodijeex. horta way mahadsan yihiin, hankooda ay la yimaadeen. qofku waxaan wuu yeelan karaa, laakiin anigu waxaan odhan lahaa arrintaas ilmaadeerayaal kulli waa ku yara degdegteen. waayo dee Cabdikariin Axmed Mooge oo maanta wata aan u malaynayo inuu wato 8 xubnood kursi ay ku soo bixi lahaayeen, kuraastay ku soo bixi lahaayeen codkoodii buu wataa, ama 9 xubnood. waxay ka dhigantay inankaasi inuu jabiyey koobkii qarannimada Somaliland, yacnihii iyadoo la aaminsan yahay oo raalli laga yahay oo loo codeeyey inuu koobkeedii jabiyey baan u aaminsanahay, oo halkaa ka wato koob dahaba iyo bilo dahaba. marka inamadan waxaan oran lahaa dee inanka u tahniyadeysaan bay ahayd maadaama oo waxaan isagu la yimi mujtamacina uu dee doortay boqolkiiba boqolna uu dee guul cajiiba soo hooyey. marka inaad la shaqaysaan oo aad soo dhaweysaan hankiisa, mujtamacii doortayna iyaga naftkooda inankii u hanaysaan oo aad tirahdaan dee faa'iido ku soo dhawow oo shaqadii bilow ayaan kolley anagu rajaynayn intayada caqliga u saaxiib kale. markaa walaalayaal ama ilmaadeerayaal waxa weeye dee ha laga fiirsado oo maadaama aynu wada leenahay aynu wax wada qabanno u wada socono dalkeena inaynu wax u qabanno. haddana dee sida loo kala cod bato ama sida maxaa lahayd loo kala
ayidsan yahay in wax qabad muuqda la qabanayo way caasimadu waa magaalada keliya ee maanta dee aynu rajaynayno ee madaxdeeni fadhido ee xukuumadii fadhido ee cid waliba imanayso cid kasta oo danaynaysa dalka inay eegto Somaliland waa meesha keliya lagu soo degaya la imanayo marka waxa loo baahan yahay dad qiimo badan oo waa wada qiimo leedihiin oo meydin ma qiimo darnidin nama aad agtada qaaliba ka tiidin ka xitaa laakiin Cabdikariin waa nin maanta daacad ah oo ismuujiyay oo ummadii Ilaahay na dooratay marka walaalayaal inanka u haneeya qalbiga iyo niyadda ha ka jabinina wuxuu arkayaa in makaarimahaas oo kale waa arrimaha niyadda la iska jabiyo waa arrin aad u xun weeye marka inta Ilaahay ka xabsataan kullu Ilaahay waa ka xabsanaysaa dad muslim waa tihiin waxaan idinleeyahay dadka qalbiga ka jibinin reer Soomaaliland waxa lagu yaqaanaa Soomaali iyo Afrikaankaba qofka markaa muuqda ee xidigta ama leerka muuqda يعني هو كوشين برواقليان أو هريرها يكقبصدان تاس وحبل ومجاله هذا هنكي لما إنك سيدين وذي كرسوني يتقلنا نقولنا يا ولدين هيدوني ندرا شقايو إنه هو حسلا شركة رئيسان بقى أي حي إنه كي قهت مع دان معه وإنك محمود تعبتك وطرت إيه الله اللي يحكون عض هذا نتق صباحي ما شنكون عض صباحي أي سوق صباحي لبعض تن اللي يحكون إيه لو بقى something وأنا تاء تان qiimeyn gaar ah way taasi leedahay waxaan kaloo u sheegayaa labada xusbi ee u cidiyo wadan mas'uuliyiinta madaxa haya Cabdiraxmaan Ciro iyo Faysal Cali Waraabe ayaan halkan iyagana u marinayaa cod waxa weeye maanta Somaliland libteedu waa la rabaa in la helo maanta waxaynu doonaynaa Somaliland baynu nahay laakiin Somaliland ma nihin Somaliland waa inaynu noqono waa inaan xaqiiqdi taabano waa in dalkeeni dee runta aynu u raacno wax run dee lagu hogaamiyo lagu wado marka inamada soo baxay ee Ilaahay soo saaray ee dee sabada laga aqbalay maaha in inamada kale ee iyaguna dee soo baxay ay ku shibirwaaqleen waa in runta u sheegtaan oo tiraadaan de ma arintani ma aha arin deesaas in ugu digdiga ay tahay inanka Ilaahay baa soo saaray 8 qof ama 9 qof codkood buu wataa 9 kursi codkood buu wataa waana nin daacada waa nin aanu ognay baan ku inuu 2 jeer iska asilay wasiir ku xigeen inuu daacad yahay soo ka orday dulmiga iyo xumaanta meesha laga shaqeynayo marka ma tiiba la soo wadaade waa tiiba la soo wadna weeyaan soo ciyaarsiinayna taama idga yeelinadii waan mudaharaadina wallahi soo dhawan ka mudaharaadina hadii inanka arrintiisa dib looga noqon waayo caalamka dhan waan ka mudaharaadina Somaliland waa la digu imanaya mina aanan diga yeelin ka mudaharaada reer Somaliland ayaan leenahay oo diida maadaama ninkaasi uu wato 9 kursi codkood uu wato inankaasi waxaan leenahay mudaharaada shacabku waa inay dhawaaqoodii firtoodii ay u codeeyaan ka ay ka doodaan iyaguna marka ay ka jawaabaan jawaabka cidiya hadii aan arrin degdeg ka soo bixin karto taasi waa qodob aad baan idin salaamaya programkan waa programkeeni ahaa maxaynu qabanay maxaase qabiya oo musalsal socda oo dadka la xisaabtamayo madaxda oo la xisaabtamayo mucaaradka iyaga naftirkooda waxa weeye sida ay wuxuu raadinayaan baa laga xisaabtamaya oo leeyahay maxaa se wuxuu raadinaysan saa wala xisaabtamaysan muxaafidka يعني وضاد وي بلارن أو سقطة أو عن قاعين لا أنت إنتراف كهلينو ما أنت إنتراف لنا إن شاء الله بنلاقي كم سوق رخصة بدل وين هليناي يسقى بوركرام كم يسوي اللي بدل إن شاء الله هرا الله صعرية سمعنا حنولاتو أبان السلام يا وركن عن نقص بين حنقض ور قيمة له يدكوا هني عبد الكريم ما يركع deegaanka iyo Murudshe. Aad baan salaam عليكم.